والسلام يا مركو غوريسا بعد تي في صعب سؤال waxa weeye shirka wali ma tigin laakiin waxaan ku jeclahay inaan laakiin waxa ka socdo oo dhan waan ka warhayaa waxaana ahayd shirku de ergooyin baa loo magacaabay ergooyinkaas waxa ahayn madax dhaqameedka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maxaan anigu markaa aan door biday waxaan mar haddii ergooyin dee la magacaabay waa arrin reerka u taallaa tahay oo ay madax dhaqameedku maxaan ku dhahdaa ay shirayaan ama hal doorkuba ma hadda khasab in qof walba tago dad badan aan tigin way jiraan laakiin de wax ka socdo oo dhan run ahaantii waan ka warhaynaa haddii si fiican shirku u socda waxaanan laga filayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan ka filaysaa shirka waxa weeye inuu ka soo baxo de wax qarankan runtii faa'iido u leh qodobka ugu horeeya laga filayaa waxa weeye waa arrin ku salaysan de midnimada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sugidda nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xasiloonida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noqdo shir waxaan ku dhahdaa wax ku soo kordhiya adkeeyana inay de qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay mid run ahaantii lama taabtaana ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku naaloonayso maanta meel wanaagsanna maxaan ku dhahdaa ay marayso marka qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan run ahaantii oo aan qabo reerkan ka soo jeeda inay adduun weynaha iyo reerkooda iyo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan maxaan ku dhahdaa ay u tilmaami doonaan qodobka labaad waxa weeye mid ay reerkooda ugu talinayaan iyo waliba qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo reerku run ahaantii wuxuu ka mid yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinac kasta marka qodobada ay run ahaantii la filayeen shirka ka soo baxaan oo reerku ay filayaan in ay maxaan ku dhahdaa ka hadlaan waxa ka mid ah sidii horumar beesha loo gaarsiin lahaa kana qayb horumar qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maxaan ku dhahdaa oo dhinacyo badan maxaan ku dhahdaa taabanaya oo ay ka mid tahay hadday tahay waxbarashada hadday tahay walwada soo gal marna waa private bay noqotaa oo mid gaar loo leeyahay bay noqotaa midna waa taa public ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jiraan caafimaadku waa qayb ka tahay oo iyaduna marna mid gaar loo leeyahay oo ay tahay inay eegaan beesha deegaanada ay degto waxa ka maqan sidii ay ugu soo kordhin lahaayeen haddii ay qaybka ay ka mid tahay xagga dhinaca biyaha oo run ahaantii aad iyo aad sidii looga kaaftoomi lahaa biyo la'aantan maxaan ku dhahdaa ay jirta oo labaduba ay soo gelayaan saddexduba ay soo gelayaan marna tii qaranka marna ay soo gelayaan mid ay tahay dadku deegaanka degan يعني maxay ka qaban karaan oo maxay maxaan ku dhahdaa ay ka taagay ay ka maxaan ku dhahdaa ay sameyn karaan waxa kale oo muhiim ah oo in qaranka lagu taageero run ahaantii iyo ciidamada qalabka sida difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo يعني de waxa ugu horeeya waxyaabaha ugu horeeya maxaan ku dhahdaa ugu waaweyn oo maxaan ku dhahdaa ay jiraan marka waxa la wixii ay baahi tahayba haday mid biyo tahay haday mid caafimaad tahay haday mid maxaan ku dhahdaa waxbarasho tahay hadii ay tahay mid kale oo yani dhalinyarada iyo maxaan ku dhahdaa iyo haweenkaba maxaan ku dhahdaa deegaanadaas qayb weyn ka qaadanaysa inay wax maxaan ku dhahdaa muhiim ay ka soo saaraan qodobka kale aan u jeclahay oo ay tahay in laga soo saaro waxa weeye in reerka loo sameeyo shirka uu ka soo baxo guddi rasmi ah oo salaadiinta guud iyo wixii uqaal lagu darayo iyo wixii haldoorka reerka lagu darayo intaba oo aanay noqon maalin walba nin meel iskaga dhawaaqa wuxuu doono ku dhawaaqay mar haddii shir la qabanayay haddii kale ay noqoto wax guddidaas ka soo baxa oo reerku uu yeesho meel foundation oo adag oo ragga ay wax moodayaan iyo hablaba haday doonto loo arrimiyo maxaan ku dhahdaa la dooro guddi rasmi ah oo reerka maxaan ku dhahdaa taladiisa iyo waajihintiisa maxaan ku dhahdaa ka qayb qaadata
hadday dawlad la xiriirayso iyo hadday reerka maxaan ku rahdaa ay u warriminayaan labadaba maxaan ku rahdaa ka soco oo aanay noqon arrin habqan oo maalin walba caaqil meel jooga ama suldaan meel jooga aanu odhan waxaas iyo waxaasaan ku baaqaya ama waxaas iyo waxaasaan ku baaqayaa meel lagala xidhiidho oo reerku uu yeesho foundation maxaan ku rahdaa la sameeyo ayaan run ahaantii anigu aan maxaan ku rahdaa jeclaan lahaa inay shirka ka soo baxdo waxaan kaloo jeclaan lahaa inay qodob ka soo baxdaa raggan ku shaqaysanaya magaca reernimada isagoo cadow ah Soomaaliland oo ay ka mid tahay maxaan ku rahdaa rag ama Soomaaliya wareegaya ama wareegaya maxaan ku rahdaa maanta sida kana kaakagoye la yiraahdo Martin Maxamed Puntland iyo maxaan ku rahdaa wareegaya iyo maxaan ku rahdaa meelo kale laga qabto soo garan maysid dabadeed aanay noqon maxaan ku rahdaa wax aanay reer ku qaadan isagoo shaarkii reer ku gabanaya ama magacii reerka gashan isagoo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda isagoo qarannimada jamhuuriyadda laan ka soo jeeda anu dawaan aqaana Martin shakhsiyadu yahay baan aqaana waxaan aqaanaa dadnimadu uu leeyahay baan aqaanaa waa nin maanta wax mooday inuu ku shaqaysan karo dumista iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cayda maxaan ku rahdaa haldoorka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo kale oo maanta guul darro ku sheegayo ama cali warcadde maxaan ku rahdaa uu caayayo midkoodna cididiisa ma gaadho Martin Maxamed hadduu maanta naf leeyahay naf buu moodeen ama maxaan ku rahdaa gabood kamuu dhigteen dumiska qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maxaan ku rahdaa kala qaybinta ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland muu moodeen wax naf leh ama maxaan ku rahdaa gabood kamuu dhigteen laakiin waxa weeye waa qof aan shakhsiyad lahayn runtii waa qof aan maxaan ku rahdaa waxaana fiicnaan lahayd halkuu ka sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo Cirro oo kale uu leeyahay waa guul dareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi muu guul dareysan boqolkiiba 41 ayuu helay foodkii jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay boqolkiiba 41 waana markii ugu horeysay xisbi ahaan uu cararo ninka caynkaas inta soo joogay campaign laguma jiray inuu shakhsiyad aan u dhigmin oo caayana runtii waa wax dee lagu aan qaban dadnimada iyo maxaan ku rahdaa Puntland uu joogana ee uu maanta fidnada kula jiro ee uu dadkiisii leeyahay yani uu ka soo wado fidmada iyaga doonayay nabadgelyo iyo wanaag iyo sidii loogu wada noolaan lahaa qarankan marka waan jeclaan lahaa shirku inuu ka soo saaro sida dadka xaaraanta quutayaasha ee noocaas u nool sida ee ku shaqaysanaya qabiilka garxajis isagoo aan waxba ahayn isagoo aan wax la wuxuu ciidow maxaan ku rahdaa u dhigmaayo shakhsiyadu u dhigmaa aanay jirin inay ka soo kala yiraahdaan nima matalo mana sameeyo madaxweynaha Soomaaliland uu sheeganayana inaanu shakhsiyad lahayn waxa ku tusaysaa يعني مدعوين لماذا ضلك على القدور طايو قفل يعني قف مركان أنا دون تيسو أنا دون أصلا هين سو أنا هين قف يعني وأنك هذا دوية اللي وريجي مدعوين يعني زو جرين ميسيد نوع عاصو كلانين وشركة كسو صاروا هذا الله رسمي أو يراها قف كساو نيل ونول أمسن دمست قرن ماذا جمهورية الصومال هي كلا درسته iyo isku dirka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedu nima matalo maxaan ku rahdaa anaga nima matalo ayaan maxaan ku rahdaa jeclaan lahaa inay ka soo baxdo maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel wanaagsan u maraya meel ummadeeduna ay ku kalsoon tahay u maraya waxaan qabnaa shirkaas iyo horena waan u sheegay reerkayagu wax shirka qarannimada ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland sida maxaan ku rahdaa raggii ka hadlay baa ay sheegeen maxaan ku rahdaa Axmed Mire iyo Ismaaciil Buuba iyo maxaan ku rahdaa Saciid iyo Cabdiraxmaan Cirro ay sheegeen waxa weeye shirkaas wax qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland faa'iido ku soo kordhiyay mooyaane wax xumaana oo ku soo kordhinaya ma jiro horena waan u sheegay waana aaminsanahay inaan maxaan ku rahdaa reerkayga inta la eegay halka jooga intay meel isugu tagaan
waxaan wanaag ahayn aan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo wasiirka hore ee warfaafinta Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu soo dhisay xukuumad tayada xukuumaddaas bulshadu si weyn bay u saluugsan tahay saluugaas bulshada ma la qabtaa ma lama qabo walaaleen saluugu wax caadi oo siyaasadda kamid ah sideedaba waa sunnaha siyaasadda kamid tahay bulshada qaranka intaa la eg la wada odhan maayo bulshada intaa la eg laga wada heli maayo 100% cid maxaan ku dhahdaa wax walba ay ku raacsan tahay madaxweynaha dastuurkeenu saa ka warqabtaan waxa uu xaq u siiyey madaxweynaha qaranka inuu soo xusho dadka uu wax bidayo inay qarankan ku soo kordhiyaan oo la shaqayn kara madaxweynuhu dadkaas soo xushay rag iyo dumarba uu isleeyahay waxbay maxaan ku dhahdaa kugu soo kordhinayaan wuxuu kaloo xaq u leeyahay dadka uu soo xushay haddii uu dhaliilo inuu mar alla markay doonto uu maxaan ku dhahdaa ay bedeli karo oo qof kale maxaan ku dhahdaa uu ku bedeli karo marka lama qabo waqti wax lagu qiyaasay lama joogo sidaan hore u sheegay waqti yar oo 6 bilood ku dhawaadayay dawladdu maanta maxaan ku dhahdaa ay jirtaa Muuse Biixi madaxweynaha ka yahay hal isugu baan leeyahay waqtina hal la siiyo dabadna way soo bixi doontaa laakiin maanta waxaan ku idhaahdaa 6 bilood gudahood dawladdaas dhaliil bay leedahay ama saasay tahay run ahaantii anigu ma arko waxaan moodaa ummadeenu dadkeenu inuu yar degdeg badan ku jiro warda wax bilood cidina adduunka waxba kuma qiyaastee madaxweynaha waqtigeeda hala siiyo hal suga baan leeyahay isagana xaq u leh waqtigu bedelayo iyo waqtigu isleeyahay ama waad ku kalsoon tahay ama sidee raggii u xugtay qaarna de kubadda si fiican u dhalinayaan oo natural qaarna rag badan bay noqonayaan oo sida kubadda maanta weel ciyaaraha adduunka socda kubadda cagta wata oo socota qaarna wuu bedelayaayo wada aragtay coachku marna wuu bedelaa wuxuu yiraahdaa wallahi hebel wuu yar daalay ya ama hebel dhowr gool buu cunay hebel ku bedel marna wuxuu oranayaa wallahi Muuse halkaas oo kale jooga madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka waqtigiisa hala siiyo waqtigiisa hala sugo waxaan qabaa inay maxaan ku raahdaa mar walba uu ugan doono ku isleeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bay faa'iido ay u hayaan intii ay xukuumadda madaxweyne Biixi ay xilka haysay waxa kor u kacay dagaalka siyaasadeed ee Soomaaliland kaga imanaya dhinaca Soomaaliya arintaas maxaa u sababaya isleeda wallahi waxa u sababay ilaa maalintii aynu xornimadeena dib u soo noqonay ilaa maanta waxa weeye dagaalkan mid socday buuxa waxa ka go'an ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu sugno xuduudaha aynu leenahay Soomaaliyana waxa ka go'an inaanay Soomaaliland noqon dal xuduudahoodana gaadha i'tiraafna aan helin horumarna laga ilaaliyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa laba isku heli karno inaynu niyadda ka rabno inaynu xuduudaheeni sugno oo gaadhno inaynu niyadda ka rabno inaynu horumar gaadhno oo aynu horumarkaas maxaan ku dhahdaa wax walba aynu helno iyo inaanay noqon waxaynu u hurno waqtigeena iyo xoolaheena iyo maxaan ku dhahdaa wax kasta aynu leenahay wax weyn oo qofka bini'aadamka uu bixiyo waxa ugu weyn waa nafta maanta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhiig rag badan baa ku dhintay mushaahidiina korneelka leh rag kale leh laakiin waxay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland kaga samraysaa oo ay ku naaloonaysaa ilaahayna naxariista jannaha ha siiyo dee ragga dalkan u jihaadiyay maxaan ku dhahaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta hal door waxaan u fadhinaa dhowr waxaan u fadhinaa dhakhtarkii gaboosana maanta u soo furaynay hal door waxa weeye
ونبتقليد قرن كجمهورية الصومال لأن يكون نوشة يا قرن كجمهورية الصومال لأن إذا مديدو نفتح وهرية مركب وحنا هاي وحبضنا يا ولا الحوي وحبوا على جوا قلنا دجال مر كردي موسى كردي ما هي موسى وحكم دي هرجع قرن كان أصوات دجال كودا وعمي وك صاحبتي إلى ما تينا جو خصيان إلى نحرس جنها سيء لكن وحوي عدو أيات شره ما حنقول هذا عدو أيات شره سومالي اللي أنا أقولين هرمرته سومالي اللي أنا هرمرين أنا أقولين نبض هاته سومالي اللي أنا أقولين حرنغته وحنا وجهرية وصومالية ومدة بطلنا وحنا وشيقنا ولقي من وناك بين قدحي يو ينبتقليو ينو محن كنا وحياة بدنا نسكعاونه ما أنت ينو غن الميل أما فرماتش كأديكتو أما عبد وليو كبغى ينا ما كنا ضاي ما أنت بطلنا ندير له قصة دوران أنا مشروع كديجانه dadkan waa dad wixiso ah jaara waxaan wanaag haynaan weligood ka dhaxaynin nabadda iyo wanaaga maxaan ku raahdaa hal ilaaliyo laakiin waxa hubaala muusan inuu aanu dagaal rabin ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland aanu dagaal rabin laakiin haddii lagu kalifo maxaan ku raahdaa شرفته iyo masiirka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta badan maxaan ku raahdaa difaaciyaan waa mid la hubo way Cusmaan Cabdullaahi Saxarti Cadaani in siyaasadda Soomaaliland siyaasiyiinta ugu waaweyn ayaa dabcan ka mid tahay wasiirro waad soo qabatay xilal kalena dabcan waad ka soo qabatay Soomaaliland waxaana dadka qaar adiga si ku yaqaan waxay yiraahdaan hadda waqtigii wuxuu taagan yahay gudoomiyadii kulmiye isku sharixi lahaay oo halka dalka madaxweyne ka noqon lahaay wali hankaas ma kugu dhashay والله هورنا أنت وأنا جوابه حن سياسات أو رك بدنا سومال لأنه ولي كواس مرات كمده ما حنقول هذا وحنا قبائلنا قرن كم وحوين أنكو كلنا كرا ودنعية بدن ما حنقول هذا قبه maanta gudoomiyaha xisbiga waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigeeda markay gaadho ayaan arinta maxaan ku raahdaa ka hadlayaa mar hadduu madaxweynuhu arinta markuu yiraahdo waan gudbinayaa waxaan ka mid ahay ragga kulmiye waa xisbi aan runtii waqti badan geliyay waa xisbi aan runtii saaxiibo badan iyo dad aan walaalanahay aanu ku leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinadeega waxaan qabaa waqtigeeda marka la gaaro inaan shaacid doono oo aan ka hadli doono waxaan qabo waan ka fikirayaa waan ku talabadsanayaa laakiin waxaan qabaa cidiga xigta oo kulmiyay madaxnimada xisbiga kulmiyay inaanay jirin laakiin waqti badan baan gelinayaa madaxweynaha ka warsugaya waqtigu maxaan ku raahdaa waqtigeeda marka la gaaro marka ma doonayaan inaan ka hor dhaco marka waxaan u fahanay madaxweynaha dabadii haddii madaxweynuhu ama ka tanaasulo sidaas madaxweynuhu markuu ka tanaasulo oo arintaas u soo bandhiga xisbiga kulmiye waxaan qabaa diigeygana ku jirta inaan kulmiye cidiga xigtaa jirin marka ummadda xisbiga kulmiye ee joogta saad ka warqabto waxa la yiraahdaa xisbiga kulmiye waa jeegaanta reerka la yiraahdo daanu jeegaanta meel lagu tirinayay anu reer ahaan mihi laakiin kulmiye aanu isku nahay kulmiyana cidiga xigtaa ma jira baan qabaa oo kulmiye intaan soo geliyay iyo intaan maxaan ku raahdaa aanu soo dagaalamay yar baa soo dagaalantay marka cidiga xigtaa ma jirto walaalada xisbiga ku jirana bari ilaa galbeed joogan iyadoo dhaxaysaba waanu soo bandhigi doonaa waqtigeeda haddii la gaaro aan go'aanka gaaro wax kale baa lagu xanto cadaani laakiin cid ku xaman mayso
inuu xisbiga kulmiye uu yahay maxaan ku dhahdaa ragga aad ugu soo dagaalan ayaan u malaynayaa inaan cidna aanay maxaan ku dhahay diideen mid caddaan necab iyo mid jecelba marka insha allah waqtigeeda ha la gaadho waa bedriyo wadka waad maqli doontaan iyo daacado marka waqtigeeda la gaadho laakiin maanta ka soo hordhici maayo wasiiro badan oo aad isku xukuumaddii madaxweyne Siinaaya aad ka wada tirsanaydeen hadda xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo madaxweyne Muuse Biixi adiga madaxweynaha xiriir nooceeya ayaad ka dhaxeeyo da saaxiib baan nahay aad baan saaxiib u nahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 7 sanadood ku dhawaan wasiirka ahaa madaxweynaha iyo ummaduba waxaan ugu leedahay inaan u mahadnaqno waayo waan la sharfay waxaana lagu sharfay xilkii ugu sareeyay madaxweyne ku-xigeen baa ka sareeyay markaad wasiir tahay markaad muddo 7 sanadood ku dhawaada aad wasiir ahayd ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa inuu xilkaan ugu asturay 3 wasaaradood baan soo qabtay wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda wasiirkii duulistii hawada iyo wasiirka warfaafinta mid walba raad cadaan leeyahay baan kaga tagay oo taariikhdu ay maxaan ku dhahdaa ay qiri doonto oo ay maxaan ku dhahdaa waan weligii baabayn waxaan mahadnaqahay waan madaxweyne Siinaaya madaxweynahaygii hore ilaahay cimrigiisa ha raajiyay caafimaadna ha siiyay madaxweyne wuxuu ahaa damaloo dalkan jooga maantana wuxuu dhigay madaxweyne kale oo damal ah oo dalkan dhiiggiisa iyo naftiisa u soo horay ayuu maantana maxaan ku dhahdaa kala wareegay xilkii labaduba maanta waxaan ugu leeyahay inaanu talo wixii wanaagsan siino ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu leedahay inta aanu wasiirnimada u hayn mahadnaqoon inaanu mahadnaqno laakiin wasiir baan noqon waayay maxaa la iga tagay walaal qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu balaaray ma fahanti xagga alana waa laga bixiyaa waxan marka waxa weeyaan anigu madaxweynaha saaxiib baan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidaan Axmed Maxamed Siinaaya saaxiib ka wahay ayaan muusana aan maxaan ku dhahdaa saaxiib u nahay wixii aan talahayana si gaar ah ayaan u siiyaa ummadana waan uga mahadnaqayaa anigu intii aan maxaan ku dhahdaa aan sharfeenay aan guryahooda aan ku soo galeynay iyo xafiisyada aan qaranka ugu haynay waxaan wanaag ahayn oo sharaf ahayn oo aan maanta u haynaa maxaan ku dhahdaa ma jiro marka anigu saaxiibadayda kale aad sheegaysaan ay leedihiin Muuse saaxiib maaha garan maaye anu naftaydan ka hadlayaayo Muuse waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa nin dalkan u soo halgamay waa nin dalkan maxaan ku dhahdaa naftiisa u huray maanta sharaf iyo wanaag iyo maamuus waxaan ahayn oo aanu hayaa ma jirto marka saaxiibtinimadaas naga dhaxayso muddo dheerna maxaan ku dhahdaa ay ahayd ilaa maalintuu SNM ku soo biirayay Muuse raggii yaqaanay baan kamid ahaa oo Mareykan baan joogaa anuu chairman of SNM baan ahaan jiray anigoo North America jooga Muuse waan is dhaqaan iyo maxaan ku dhahdaa rag kale oo fara badan ba marka dal iyo qaran wanaagsan iyo ummad wanaagsan baynu ka dhalanay run ahaantii waxaan mahadnaqahayn oo qarankeena aan anigu maanta u hayaana oo aan mahadnaqahayn ummadda dadkeena run ahaantii ma jiro saaxiibadeeda kalena iyaga ka wareysan doontaan waxaan madaxweynaha u jeclayn iyo waxa haday u cadhaysan yihiin iyo hadii kale laakiin anigu manaan arag qaar aan caynka ahayn haday jiraan waxaan oran lahaa waa layna sharfee sharafta iyo maamuuskii qarannimada uu siiyay Axmed Maxamed Siinaaya waxaan mahadnaqahayn oo inoo qaranku inaga waajiba ma jiradii ayaan leeyahay